Sannad kasta 29-ka bisha Hiddaar, Itoobiya waxay xustaa Maalinta Qowmiyadaha iyo Shucuubta, maalin u gaar ah wada noolaanshaha, isfahanka, iyo midnimada qowmiyadaha dalka. Sannadkan xuska 20aad ayaa si heer sare ah deegaanada dalku ay u sameynayeen hordhac ay ku xusayaan xuska maalintan, sida magaalo walba oo ka tirsan dowlad-deegaanka Soomaalida. Munaasabadahaasi ayaa ka qayb qaatay wacyigelinta bulshada ku aaddan midnimada, wadajirka, iyo taageeridda dhaqamada iyo luqadaha qowmiyadaha Itoobiya. Socod wacyigelin ah oo lagu muujinayo boodhadh halku-dhig looga dhigay isfahanka dimuqraadiyaddu waa udub-dhexaadka midnimada qaran, iyadoo shacabka lagu dhiirrigeliyay inay ka qayb qaataan xuska rasmiga ah, iyagoo muujinaya sida qowmiyadaha Itoobiya ay isugu dhafan yihiin, nabad ku wada nool yihiin, isla markaana taageera midnimada qaran. Munaasabadahaasi waxay caddeeyeen in qowmiyadaha Itoobiya ay u taagan yihiin wadajir, kalgacal, iyo dhismaha qaran midaysan. Waxaa la muujiyay muhiimadda ay leedahay in dadka deegaanku iska kaashadaan nabad, horumar, iyo wada noolaansho qaran. Shacabka ayaa si firfircoon ugu muujiyay taageeradooda, midnimadooda, iyo wadajirka qowmiyadaha, iyadoo fariimo wacyigelin ah ay gudbinayeen boodhasha iyo socodka bulshadu. Xuskan waxa uu muujinayaa in wada noolaanshaha, isfahanka, iyo ilaalinta xuquuqda qowmiyadaha ay yihiin udub-dhexaadka nabadda iyo midnimada qaran. Xuska 20aad ee Maalinta Qowmiyadaha iyo Shucuubta Itoobiya wuxuu noqday mid si ballaaran looga xusay dowlad-deegaan walba oo ka tirsan dalkani Itoobiya, iyadoo qowmiyadaha Itoobiya ay si wadajir ah u dhisayaan bulsho isku duuban, isfahansan, isla markaana xoojinaysa midnimada.